kambaniga deegaan dhowr oo ka shaqeeya arrimaha nadaafadda iyo fayadhowrka bulshada wuxuu dalka kusoo biiray 2016 waxa uu dalka ka shaqeeyaa maxaan ku raahdaa laga soo bilaabo 16kii ilaa iyo hadda si guud adeegyada uu kambanigan deegaan dhowr bixiyo oo magaalada ka bixiyo waxaa kamid ah maxaan ku raahdaa shaqaale nadaafadeed oo tababaran oo haykalkooda caafimaad iyo midkooda ammaan dhameystiran kambaniga sidoo kale waxyaalaha uu yani bulshada Soomaaliyeed u qabto waxa qayb ka ah la dagaalanka cayayaanka iyo adeegyo fara badan oo kala duwan oo maxaan ku raahdaa dalka uu soo kordhiyay asoo maxaan ku raahdaa ka duulaya maxaan ku raahdaa baahiyaha markaas dalka ka jiray iyo fursadahaas la xiriiray nadaafadda dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho aad ugu baahnaa wuxuu nagala shaqeeyay kambaniga dhanka nadaafadda iyo bilicda suuqa ayuu qayb ka ahaa ama ka yahay ilaa hadda sidoo kale wuxuu mar walba noo keenaa kambaniga deegaan dhowr shaqaalaha carbisan oo u tababaran shaqooyinka ay qaban hayaan ee looga baahan yahay inay qabtaan sidoo kale baahiyaha degdega marka timaado ama aan u baahano dad dheeriyaan u baahano isla markiisii emergency ay baahiyahana uga jawaabaan wallahi deegaan dhowr horta wax walba limit bay leeyihiin limitka waa shaqaaluhu leeyihiin aniga raahanti korbe u dhaafay malee because of yani qof walba waqti qofku si wuu shaqaalo yahay haddana shaqada deegaan dhowr ay qabataa way ka limit badan tahay aad bay u bahlayaan wax walba way kugu ixtiraamayaan ku soo dhaweynayaan marka u horeysa iyaga ku raali gelinayaba majority dadka ka dhisan ay ka imaadaan wana laga keena marka u horeysa iyaga ku raali gelinay second shaqada aad u dirsatay si ixtiraam leh kugu qabanayaan marka aad la hadasho aad ku tiraa waxa sidaas ka dhiga masaaka sameeya intay soo sameeyaan ay sugayaan inta aad ku noqonayso ay kugu sugayaan kugu ixtiraamayaan shaqadoodii inta aad ku noqonayso meeshii sida u dhameystiran aad ka sheekamayso seven kan joogno waa seven dib badan dadku waxay u baahan yihiin ninka maanta shaqada keenayo in laba qof laga saxeexo qofkan oo damaanada laakiin deegaan dhowr dadka anaga noo keento ayagaa damiinka ah wax wanaguma aha marka hadda waxaan anagu danaynaa qof haddaan u baahno inaan deegaan dhowr ka dalbano laba arrimoodba marka waan uga dalbanaa qof la soo tababaray oo training lagu soo sameeyey oo shaqadan yaqaana qodob iyo qof documenti leh oo meesha loo raaco la yaqaano oo company shaqaynaya oo magaaladan caan ka ah oo qofkan soo training-ay mas'uuliyadda soo qaad labadaas waa muhiim ayaga marka annaga labadaasaan ku danaynaa marka deegaan dhowr waxaan aragnaa inta badan dad tareenin ay siiyaan oo xataa dad shaqaale ah ama macallimiin oo banaanka ay ka keenaan taasna waa waxyaabaha aad noo dhiirigelinaya inaan la sii wada shaqeyno insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ama hubnaaba inay buuxisay gaabis tiro badan oo ka banaanaa dhanka nadaafadda guud ee isbitaalada dhin iyo deegaankaba sababtoo haddii maanta waxaa aaminsanahay haddii noqon lahayn dad doorto dadka nadaafadda u qaabilsan in dhibaato badan cabasho badan ay jiri lahayd dhanka nadaafadda sababtoo maanta markay 3 qof ku joogto qof walba bini'aadan waxa qabsan karo waxa laga yaabaa 3 qof heshiis kula jiray ama heshiis la galay shaqaalaha nadaafadda inuu qof ka maqnaado ama qof barbalam sheegto waxa ku qasbantaa markaas qofkaas inaa qof raadis waqtiga kugu qaadanay laakiin deegaan dhowr waxay ku maasan tahay weli ma dhicin in la dhaho qof aad maqan qof haddii barbalam soo wajaho ama culays soo wajaho isla markii qof kale ku soo bedeshaa haddii shaqada cuslaato xitaa shaqaalin loogu talagalay wax ka badan ay keenaan qof shaqaale ka xanuunsana mise adigoo weyn wuxuu ku leeyahay istiqaalo uu ku keeni karo waxaa dareemay culays badan laakiin had sanadkan inta ay nala joogaan culayskaasi waa naga degay soo dhawaa dabcan shirkadda deegaan dhowr waxay ugu duwan tahay shirkadaha kale oo nadaafadeed waa shirkad leh tayo nadaafad leh shaqaale tababaran heegan waa shaqada waqtiga ilaaliya mar walba customerkana ama dabcan macaamiisha markasta u nugul caqabadahooda sida ugu xaliso mar walba shaqaalaha noo shaqeynaya ama shaqaalaha deegaan dhowr u shaqeynaya waxaa jiro si toos waxay xiriir ula leeyihiin xafiiska shaqada iyo shaqaalaha iyo xafiiska operationka
already qofku waa bini aadan family problem qabsan kara asaa xanuunsan kara dhibaatooyin rabaaniya iska dhici kara si toos ah qofkaas dhibka markuu gaaro waxaa jiro xarunta uu ka shaqeynayo waxa shaqada u joogo qof waxaan ku raahdaa hoggaan shaqaalaha u ah already qofkaas lala soo xiriira qofkaas isla markii wuxuu la soo xiriira xafiiska shaqada shaqaalaha qofkaas booskiisa qof kale la geynaa si uu maxaan ku raahdaa inta uu maqan yahay uu sii joogo markuu imaadana qofkii asaga lahaa shaqadiisa qabsanayo waa loo sii haynaa booska oo qof shaqaalaha shaqada dirtay ay shaqada u sii celinayay si shaqada maxaan ku raahdaa habsaan uusan u galin qofkii maalintii danihiisa iyo duruufihii nololeed uu maqnaana uu soo dhameysto booskiisii uu ku soo laabanaa haddii uu leeyahay shaqaalaha oo support staffka ama mar walba howlaha adeegyada u qabto shirkadaha intooda badan waxaa waaye dad yar marka laga reebo intooda badan dad waxaa waaye mar walba daba socod u baahan mar walba daba taagnaansho u baahan mar walba kormeer u baahan mar walba macnaha in la daba socdo u baahan oo daba taagnaansho u baahan marka sidaan arki jirnay institutionska ama organizationska waxaa ka dhici jirtay mar walba doodo oo u dhexeeyo dadka maamulka ugu sarreeya organizationka mar walba jecel institutionkii meeshii ay madaxda ka ahayneen meel nadiif oo qurux badan ahaato iyo shaqaalihii dadka u dhawaayo oo madaxda u ahaa oo supervisorska ahaa in mar walba macnaha aysan ka dhexayso dood ah war nadaafad ma jirtee nadaafad darrada maxaa waaye mar walba marka shaqaalihii iyo haddana madaxdooda tooska ah oo supervisorska nadaafadda iyo dadkii macnaha u dhawaa inay haddana isqa qabsigooda iyo doodooda aada u badneed ani qof anaga ma dalbanabo xitaa sometimes qofka maqan xitaa kama warqabno ayagaa ka warqabo positionkiisana mar walba buuxaa qofkii problem soo wajahay oo la xiriira anaguna weydiin qof cusub ay keenaan oo hooshii lagu train garay ku tababaran sidoo kale xilliyada qaar shaqooyinka ay culus yihiin ama nadaafad dheeriya loo baahdo ama dhismo la galo ama operationada bataan waxay noo fulisaa inay kusoo darto tiimka noo joogo tiimka lagu soo darto si loo buuxiyo gaabiska jiro markay noo timid deegaan dhowr kadib waxaa bilowday dabagal shaqaalihii ah waxaa la keenay shaqaalo u carbisan shaqadii yaqaano habka loo shaqeeyo waayo waxaan waa chemical wax laga shaqeynayo oo la isku dadaraayo rag yaqaana yimid oo shaqadii qabanayo isbedel aad u weyn meeshaas aan annaga ka maamul ahaan ka dareennay marka waan u mahad celinaynaa deegaan dhowr qofka nadaafadda haya iyo qofka ka jeekimaya waayo qofka nadaafadda u dhigto waxaa arkaa inuu waxyaalo akrado laakiin qof kale dul taagan oo ka jeekimaya waxaa kaloo jira asbuuci walbana nin kale kormeera oo generaal u jeegaraynaya waa jira oo ka socda deegaan dhowr marka waxaan odhan karaa shaqadooda waa isu dheelintiran tahay aad baan ugu ammaanayaa inay halkaa ka sii wadaan oo si aanay ka caajisin shaqadaan maanta halkay joogto si laga sii dhaqaajiyo ayaan ku boorinayaa kormeerku shaqaalaha la kormeerayo laba faa'iido shirkadda way u leedahay xaruntana way u leedahay waxyaalaha ugu badan oo maxaan ku rahdaa dadku waa bini aadan wax shaqeynaya waa bini aadankana shaqada in maxaan ku rahdaa accountability la sameeyo isla xisaabtan lala sameeyna maxaan ku rahdaa diinta islaamkana faraysa oo qofka shaqadiisa in lagu kontrolo oo waajibaadkiisa loo sheego xuquuqda uu leeyahay markaasna la siiyo laba faa'iido way leedahay faa'iido koowaad waxaa waaye qofkii shaqeynayay shaqadiisiiyo maxaan ku rahdaa dardargelina oo si qurux badan u shaqeynaa labo xarunta loo shaqeeyaha ahna ama customerka loo shaqeeyaha ahna qanaaco badan uu ka dareemaya oo maxaan ku rahdaa wuxuu ogaanayaa kambaniga la shaqeynayo inuu shaqada ku kontrolo shaqaalihiisii iyo inuu ka warqabo markaas qaabkii u shaqeynaya markaas shaqaalaha labadaas shay waa faa'iidooyinka markaas in shaqada xarunta lagu kormeero ay leedahay dhibaatooyinka marka ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa tababar la-aan shaqaalaha inaysan aqoonin shaqada oo aysan tababar iyo aqoon aysan u lahayn waxaa waaye dhibaato aad u weyn oo jirtay ahayd waxyaabaha inay deegaan dhowr ay xalisa aaminsanayna ka mid tahay in shaqaalaha ay tababaran yihiin oo marka hore loosoo tababar horto qalabka ay isticmaalayaan siday u isticmaalayaan iyo waxaa arkay macnaha oomo iyo kaloriin la isku qasay qof bir ku dhaqaayo marka waxaa dareemi kartaa waad xalisanay so marka haddii qofka laakiin loo sheego wax ku dhaqan la dhaho waxaa waaye way macnaha maxaa la badbaadiya marka miisas qaaliga oo lacag badan laga soo bixiyo waxaa dhici jirtay meelaha qaar waxaan ku arki jirnay ay baabi'iso qalabka ay isticmaalayaan shaqaalaha nadaafadda wallaahi deegaan dhowr waxyaabaha aan ugu bagno waxaa ka mid ah in shaqaalahoodii ay u tababareen haddana
in bukaankii jiifay isbitaalka noo jiifay marka koowaad horta inay u naxariistaan qaylo isan jirin si degan ugu shaqeeyaan dhibsi aysan lahayn oo weliba markii ay bukaanka waa dareemi kartaa qof markuu meel yimaado qolka shaax oo kale uga daato ama raashinkii cuneen uga daatay in 10 jeer qofkii ku laalaabto horta meeshaas aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dad aad u carbisan waaye oo shaqadoodana ka adag waan ku diirsanaana ka albiri ahaan waxyaalaha qofka uu qabanayna already waa la train gareeyay oo macallimiinna u joogta waxyaalaha side effectiga daawooyinka isticmaalayaan productiga isticmaalayaan kuwa wax ku jira side effect leh productiga isticmaalayaan waa loo train gareeyaa waxyaalaha isdiidan fast first cagsiga isku ah hadii la istaabsiyo oo ay caqabad badan ka dhalanayso shaqaalihi waa la fahansiyaa iyagoo well trained ah fahansan shaqada ay qabanayaan imkaaniyaadka isticmaalayaanna markaas iyagoo fahansanay shaqada galaan marka already shaqaalihii iyo maxaan ku radaa xarunta u shaqeynayaan wax cilaaqaad kama dhaxeeyo cilaaqaadka wuxuu ka dhaxeeyaa idaarada shirkadda deegaan dhowr iyo markaas maamulka xaruntaas la shaqeeyaha ah waxaan xarunta u jooga markaas qof maxaan ku radaa wakiil uga ah shirkadda loo yaqaano supervisor qofkaas shaqada rangareynaya asaa maamulaya priority koowaad oo aan ku dooranay kamid tahay intaas deegaan dhowr in dadka ay noo soo dirayaan dad ammaano leh damaanad leh howlkar ah boqolkiiba 90 ama boqolkiiba 85 runtii shaqaalaha waa shaqaale runtii tababarka si fiican uga faa'iidaystay aqoontoodana kor u qaaday nadaafadda dabeecad ahaanna alxamdulilah anaga isbitaal ahaan dad wanaagsan aan ugu soo aadan insha allahu tacaala oo dee nala qabsada aad noola shaqeeyaan insha allah do interview for the new employees or the intake of new employees. We do the interviews, like we check the documents and some stuff. After that, now we start our training, which takes 8 days a lecture and 8 days a practical. Okay, on the lecture part of it, we train our employees on the basic information about cleaning. Every day we get some lectures in different skills on cleaning. After the training, now we send the employees to the sites to go and acquire their practical part of it. On this practical, the employees are taught on how to use different materials, different skills in different areas, and also on how to handle customers, ensure the customer service. horta shaqaalaha deegaan dhowr iskuma qaataan markay qaadanayaan oo criteria lagu qaataa criteria shaqaalaha lagu qaato waxaa kamid ah da'da kamid ah qofka da'diisu waxay qayb ka tahay yani shaqo wanaagiisa qayb ka tahay sidoo kale waxyaalaha lagu qaato waxaa kamid ah experience qofka yani how long uu soo shaqeynaya qofkan oo khibradda shaqada uu leeyahay qabashadeeda sidoo kale shaqada deegaan dhowr waxyaalaha ay ku xulato shaqaalaha waxaa kamid ah maxaan ku rahaa qofka maxaan ku rahdaa qaabka tayadiisu shaqo ay tahay iyo inta jeer iyo inta goobood uu kasoo shaqeeyey waxyaalaha la xiriira nadaafadda intaas wixii loo dhaafo waxaa la marsiiyaa procedure iyo nidaam iyo xeerar la marsiiyaa shirkada waxaa u yaalo xeerar koodhisa u yaalo oo kala xadaya shaqada iyo maxaan ku rahdaa shaqaalaha shaqada idoo socoto meel walba ilaahay ku ron yahay xafiisyada haato dadka markay meel ka yimaadeen qof dabin ka u jirin meel u raacaysan jirin walwal badan leedahay laakiin marka shaqaale ku joogo garantida wixii ku dhuma iyo wixii qaldamo sax ay jiraan oo ka dambeeyaan madaxu ka dambeeyay yihiin isku kalsooni noqomaysid marka kalsooni badan ku qabnaa aaminamadooda iyo waxba waayo iyagu waxay gabdhoodkooda baa laga wacaya ayagaa markaa isla markiiba kuu keenaya qofkan oo la soo diyaariyey qofkan oo damaanadan kaa rabin wax weeye marka dhibkii hore laga maari jiray wax way bay ka bedeleen aad baan ugu boorinayaa inay hawshaas sii wadaan hadda waxay ku tallaabsadeen oo kaleeto inay tareenin siiyaan dadka waytariintaayoo hoteelada ka shaqeeya cleanerka baaristaha waxaasoo dhan way ku soo dareen shaqadooda hadda way bilaabeen dad ay shaqo siiyeenoo ayagu tareeni intay soo siiyeen annagoo aanu hoteeladooda shaqo ka siinay oo kabalyeeri noqday baarista noqday baa hadda noo shaqeeya wallaahi kambaniga deegaan dhowr horta hadafkiisa ugu weynaa wuxuu ahaa inuu helo customer inuu macaamiil helay hadafka ugu weyn kambaniga loo asaasay uu ahaa hadafka labaad wuxuu ahaa in yacni bulshada Soomaaliyeed uu wax u qabto dhankaas maxaan ku radaa fayadhoorka bulshada waxaan dareemayaa horta kulay inta xarumood aan soo booqanay waxaan la soo kolanay dhammaan qaybahaas kala duwan maamulkoodii waxyaalihii ay nagu doorteen iyaga horta carbaabay oo sheegay
bas waxaan dareemaynaa inay nagu doorteen shaqo wanaag iyo hufnaan iyo maxaan ku rahdaa qaabkaan u shaqeynayno qaab dhaganugeel ah waxyaalaha aan dareemay inay nagu doorteen inay taastaan dareema waxaan kombaniyada aan deegaan dhowr haysanin aan kula talin lahaa deegaan dhowr waxay haysaa bilic nadaafad shaqaale edebsan ixtiraam leh kormeer lagu hayo intaba waa ugu imaanaysaa yacni wadadaan odhan karo waxay ay kusoo tareerin gareeyeen wax aada iyo aada u fiican marka waxaan leeyahay amba kula talinaya kombaniyada aan haysanin deegaan dhowr in ay la xiriiraan deegaan dhowr iyo meelaha gebi ahaan laga helayaba marketingkoodana waxaan kula talinaa deegaan dhowr inay xoog u sii wadaan mustaqbalka soo socdo iyo kan la joogaba maadaama kan la joogo ee buuxisay boosaskii banaanaa oo gaabiskii jiray ahaa in nadaafada deegaanka wax badan ka qabato mustaqbalka dhan waxaan rajeynayaa inay noqoto mid oo maamusho gobolka dhan nadaafadeeda lagu wareejiyo iyo horumar inta hadda ay joogto mid ka badan u rajeynayna insha allah hadda waxaan aaminsanahay shaqadii loogu talagalay wax ka weyn inay hayso ee ummadda u hayso mustaqbalka kambaniga dee waa kambani kor u socda waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala inuu isagana horumar sameeyo xaggaas oo tadawarka maanta adduunka waa la socdaa haddaad taagnaato waa lagu dhaafaa waxaan kula talin lahayn kambanigaas horta marka waad inuu tadawar ka sameeyo xagga oo maxaan ku rahdaa howlaha ay ummadda u qahayaan iyo bulshada soomaaliyeed iyo ganacsatada talabaadna dee deegaan dhowr markaan fiirino 3 sano naftarkeeda isbedel weyn jiraa oo xagga shaqada ay hayaan waxaan aragnaa inta badan dad tareenin ay siiyaan oo xataa dad shaqaale ah ama macallimiin oo banaanka ay ka keenaan markii la asaasay deegaan dhowr ilaa iyo hadda guulaha ay gaartay waxaa ka mid ah dhammaan sektarada magaalada muqdisho ku yaal hadday isbitaalo yihiin in magaceen uu ku xidhan yahay in yacni shaqooyin la hubo oo dhankaas fayadhowrka ah aan ka qabanay in maxaan ku rahdaa in ka badan 1,000 iyo tiro la halmaala oo shaqaale ah Soomaaliyeed inaan shaqaaleysiin kambaniga deegaan dhowr wuxuu shaqaaleysiiyaa sanad walba in ka badan 500 oo shaqaale ah sanad walba deegaan dhowr hadda waxaa u shaqeeya oo xaqiiqi ah in ka badan 1,500 oo shaqaale ah 1,000 iyo 500 oo shaqaale ah waa wax maxaan ku rahdaa waa shaqaale lagu soo xulay markaas tayadooda waa shaqaale Soomaaliyeed waxayna u badan yihiin shaqaalaha dad vulnerable ah dad nugul haba u badnaadeen dumar dadka ugu badan oo deegaan dhowr ay shaqaaleysiiso waa dumar waxayna ku soo xusheen maxaan ku rahdaa dhibaatada markaas ay iyaga haysata iyo kriteeriyadooda iyo khibradda anaga marka waxa koowaad horta aan dhiirigelinayo waxaa waaye in la joogteeyo adeegii mar walba inuu fiicnaado kadibna in lasii hormariyo meesha hadda uu marayo meel kasii fiican sida loo gaarsii lahaa in laga fikiro hadda waxaa laga yaabaa gudaha xarumaha bis inay ka shaqeeyaan banaanadooda kaleeto in lagu daro service yar inta lagu dalaco xaafadaha qaar iyo meelaha qaar oo macnaha maxaa la dhijay aysan nadaafadda weli gaarin in la gaaro kambanigu waxa uu leeyahay maxaan ku rahdaa qaybo xafiisyo wuxuu ku leeyahay Dubai kambanigu wuxuu si toos ah agabkiisa ugu keensadaa dalka dibadiisa annaga agab la keenay ama gudaha Soomaaliya agab kama iibsano agabka si toos waxa loo keenay dalka dibadiisa agabkaasaan maxaan ku rahdaa iyagoo limitation leh oo يعني maxaan ku rahdaa cadadkii la isticmaali lahaa iyo qaabka loo isticmaali lahaa ay ku xidhan yihiin macallimiintii Soomaalida ahaa iyo ajaanibta ahna ay fahansan yihiin iyo shaqaalaha loo train gareeyaa wax caqabad fara badan kama imaadaan marka waxaan dhihi lahaa dhammaan horta meel allaale meesha bulshooyinka isugu yimaadaan shirkadahoo kale isbitaaladoo kale meel allaale meesha communitygiisu uu badan yahay jaamacadahoo kale ha ka faa'iidaysteen aan dhihi lahaa shirkadan shaqada ay u hayso bulshada hadafka iyo visionka ay deegaan dhowr leedahay waxaa waaye in dhammaan gobollada Soomaaliyeed ay ku baahdo adeegan fayadhowrka bulshada ee cleaning service-ka ay gaarsiiso dhammaan gobollada dalka already hadda deegaan dhowr waxay maxaan ku rahdaa ku baahday state-yada dalka state ka mid ah waxay ka shaqeysaa hadda state-ka Puntland oo qayb Soomaaliya ka mid ah sidoo kale deegaan dhowr wuxuu ka shaqeeyaa state-ka maxaan ku rahdaa Galmudug oo state-yada Soomaaliya qayb ka ah dhammaan state-yada kale ee dalkana hadduu Ilaahay raado u gudbi doonaa waxaan hadafka aan leenahay uu yahay in shanta Soomaaliyeed ay deegaan dhowr maxaan ku rahdaa magaceeda uu gaaro adeegyada aan bixina markaas uu keeri gala biidin Allah insha Allah